بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي ما قال مسيق الله عن فضيان وملاينا يا وين سلامي كل جنبا مدة الصومالية أنت إلى صعدتها أو إلى جيسة توردن أين سلامي سلامة إسلام كان إنكو سلامي سلام كبعد نوح الرواينا نيشيغو dhibaatooyinka gobolka banaadir ka socda oo soo noqnoqonaya oo magaalada dhexdeeda caruurtii iyo gabdhihii iyo wiilashii la xadahay oo maantana aan ka hadlay ayaan mar labaad waxaan rabaa attentionkiina inaad isiisaan oo aad fahantaan waxyaalaha maaragtay aan anigu ka hadli doono sababtoo ah waxaa jirta hadda qoraal la ii soo diray waxaa la iiga soo diray galmudug gurceel ma qaadna aragtaan waa taasa qoraalkaas la ii soo diray waa inay akhrin doonaa wuxuu yidhi eedo see tahay xaaladdu waa sidee ceeb allaha asturow yidhi gabar yar oo 5 jir ah ayaa lagu kufsaday baadiyaha gurceel ilaahu ceebteenna astur marka way maqlaysaan waxa socda muqdisho kaliya kama socdaan baadiyaha gurceel baa gabar yar oo 5 jir lagu kufsaday marka waxaan rabaa inaan inii sheego waxyaalahan oo dhan waxa ka dambeeya waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kelmad kalena waa rabaa inaan iniraaho oo labadaas biyaana kaliya ayaan u soo galay sababtoo ahna waxay tahay maaragtay in maaragtay bil aadamku ay maaragtay aad ogaataan si wax u jiraan sideedaba inaad la socotaan maanta waxa soo noqday hadaladan la leeyahay mucaaradkii mucaaradku maxay ugu kici waayeen Hirshabeelle maxay uga hadli waayeen Jubbaland inay uga hadlayeen ayaa maanta suuqa isla dhaxmaraysa waxaan u malaynayaa dacajeladayga dib u raacdaan inaad ogaan doontaan waxa aan ka iri mucaaradka hadalkiisa mucaaradka waxa loo malaynayaa markay ragga madaxda ay hadlaan in ay ayagu ka dambeeyaan wax kasta oo magaalada Muqdisho ka dhaca marka maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay nin inii kacaya male ilaa aad xanuunka diibiyan aad u dareentaan dhibtada oo markii aad dhibtootaan oo dhaawac suxun inii gaaro oo ilmaha la kufsado oo gabdhaha la afduubto horta waxa ka dambeeya afduubka gabdhaha iyo waxa la rabaa in la cabsi geliyo shacabka banaadir iyo gobolada Soomaaliyeed barkee baadiyaha gurceel ay ka dhacday gabar 5 jir in la fuulo maanta marka waxaan ku leeyahay waxa la rabaa meel kasta in cabsi lagu beero dadka ay baqaan ay taxadaraan oo nafta lagu caburiyo ee hadli waayaan oo gabdhahooda iyo wiilashooda la wada afduubto wixii la dilaayna la dilo wixii la fuulayna la fuulo waa mid waxaana waxa socda maahan waa wax hore u soo socon jiray dawladii Maxamed Siyaad Barre isla wadadii adeerkiis uu ku taagnaa ayuu ku taagan yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa marka reality-ga inii sheego marka maxaa jira waxa la leeyahay meel kasto maxaa dhacay Xasan Sheekh maxaa dhacay Sheekh Shariif maxaa dhacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxay u hadli waayeen maxaa looga hadli waayay ma aragto waxa ka socda Hirshabeelle waxa ka socda Galmudug magaalada Banaadir waxa ka socda ma laga hadlo ma ka hadlayaan mucaaradku wax kaliya uga hadlayeen in sheegaya maanta hadday iniraha war nolosha aad ku jirtaan nolol ma ahe kaca waxa la leeyahay mucaaradkiya ka dambeeya marka mucaaradku hadlay mahayo wuxuuna u hadlaynin marka adinku kartaan oo aad kartaan jelmada biyaha karaysa ay karto oo aad korka ka gubataan markaas ayaad kacaysaan markaas waxaad sameeynaysan banaanbaxyo onkoda oo aad uga saaraysaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Muqdisho iyo nin allaale iyo ninka asaga haysta hadday Galmudug tahay hadday meel kasta tahay waa in onkod ilaa waxaan ku leeyahay Jowhar Hirshabeelle markaas ayaad xoroobaysaa wada reality-ga markaan inii sheego mucaaradku markaas ayay hadli karaan oo way ay ku hadlaan iyo dariiq ay ku hadlaan ayaa u bannaan laakiin inta fadhidaan oo ilmihiina la xoogayo gabdhihiina dabaqyada laga tuurahayo gabdhihiina maanta mid gurceel laga qabtay oo laga waday xamar oo laba nin oo baawur lan gursara wato koofiya gaduuda ay xadeen ay intii wax cabsiyeen ayaa gabadhii maskaxdii oo dhan si kale ay noqotay wala ii sheegay in la helay markii live-ka aan ku jiray qoraalada badanaa si fiican uma aanan arkaynin oo markaas wax ma akhriyo badanaa ee hadalkaan wadaa way habeenkii aan fiiriyaa in fact wiil aad u ah dadka aad ila socda ayaa ii soo qorayay abay qatra gabadhi waa la helay markii aan soo wacay waxa la yiri gabadhi waa la helay oo gabadhi habartii la soo hadasho waxay tiri maama tabeelo ku qoran gurceel ayaa jira okay hasa ahaato marka waxaan inii sheegayaa hadday tahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo hadday tahay Sheekh Shariif ama Cabdiraxmaan Cabdishakuur ama nin kasto wadanka ka raba inuu madaxweyne ka noqdo ilaa iyaga kaliya ma rag badan baa sharaxan Puntland rag baa ka sharaxan meel kasta laga wada sharaxan yahay nin inii hadlahaya iyo nin inii kacaya ma jirto
sababtuna waa mid keliya xamar kun jeer baan ka hadalnay war kaca war tanu nolol ma ahan war dhagaxdan suuqa ku xiran war waxaan lagu soo hayay 3 sano iyo 7 bilood aan lagu soo hayay ما فهمتين ما أنتنا أيكو سيمباتية إن كدي عرسناي أيار رئيس الوزراء عصبة وحويري ورت نجحنا أنا لقى قاعدة ضد تبع مشتركة وما عرفت يسوق عن شورته لوجا قاعدة يا مذا الحرة مذا الفراية ولي استيل نجحت ويانا وقت الهنجبات وقصة الرئيس الوزراء عصب وح أنكو أن ربنا سمي أيال الليل مركا إسلا رجي أيات شوجا ولي مجال المقدشو وحد شوجا مرسل وحد شوجا مدي وهذا كل إلى تنكرين دم دعي سقندراس كما عرفتي إن برلمان كنا نقول شقينا وحرمنا هيو واحد شوجا محمد عبد الله فرماتشو واحد شوجا فهد ياسين قدامته أرمي آد وبضن إنه إنكو حسوق أو هوية القبابي أيال لو بتلقى مركا ركبة وحي قاتين نلوش كنا عي وأفر يشن لح طبعا مجار هيان قندراسي هوية أي قاتين إنه هوية أفكار إسكو جليان إسكو دران وحال الرباء ولا شقينا هيا هوية سيد أفكار إسكو جلنا مركا واحد الرباء ونيشة حسن iyo hadalilina iyo Sharif iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur barkay adinki dibku in ku dhacay hadaad kici weydeen ayagu waxba ma qaban karaan waxna inay ma sameyn karaan waxba is ololonina barkay waxa la leeyahay dhowti nimankii madaxda ahaa ayaa dabada ka wada shicibku dib ma qabo shicibku dawladdu jecel yahay shicibku Maxamed Cabdullaahi Farmaajo jecel yahay ayaga ku diraya la leeyahay marka Farmaajo wuxuu sameeyay abaabul hadday bilaabatay أنا واحد حسوستا هذا كورنا وكادلي واجي الكوبترة ذا يكون إيمانايين من سجودين أو اللي يجري نجميرته عاين وجودان يوحسي عاين هو إذا بناك إنه مدري تشيلنا بينك واحد كستودعه في نص هذا الدنيا إنك تدل ما دراي بركي واحد هذا كوي جودان كان رابن مقالة ذا مقدشو وهو ذاك ما قال لك أفضل تمتقنا واجي سنفتي ده وحلا جيابا أنا كساس علماء أنا سعوني إمبارك يكليها دتك لقلب بحجري الديار ده وطانو الكوبتر كانوا بحسوا يستاجي جرت 22 أكتوبر دولة باكستان يقوليه ما هي قبل جرت دولته الله ونحريته محمد سياد برا ما هي قبل جرين عيد مضى وحي قبل جرين أسكير ضدك مساكين تاكليه وكنتوا من جرين مركا واحد إني وذا أذن كان الرباء إنا كعدان أذن كان الرباء بنادر إنا كسب برنامج بحضان أذن كان الرباء هالشباب إنا كسب برنامج بحضان أذن كان الرباء قل مذوب إنا كسب برنامج بحضان أذن كان الرباء إنا كسب برنامج بحضان oo aad diidaan gumaysiga oo aad koonfur galbeed aad ka soo bannaan baxdaan siday u bannaan baxeen dadkan la leeyahay hirsha waxaan dhihi lahaa meeshaan Axmed Madoobe haysto way bannaan baxeen meeqa jeeray bannaan baxeen ayagoo bannaan bax ku caddaynaya inay dowladda Farmaajo ka soo horjeedaan marka maantay waa dadka la maagahayo la baabi'inayo waa hawiye qof kale gabdhooda la fuulahayo ilmahooda la fuulahayo ma aragteen qof baabuur ciidan intay soo qaataan ilmihi xadaya langurusarro ma aragtay yaa wata langurusarrada maanta xamar ka shaqeeya waxay ahayd wixii dadka dowladda u shaqaynayay in la siiyo markay baxaanna baabuurta ay dhigaan maya ku xada la yiri gabdhaha ku xada ciidamadii waxa la yiri oo la keenay oo mareexaan fuula ilmaha yaryarkaan wiilasha fuula la yiri khaniisiin ka dhiga xaggee sheekadu ka socotaa xaggee ka timid qandaraaskan oo Farmaajo u keenay magaalada ومدي وكل ساقاتي برايم مينستر كيهودا مركو آدي إن ماركتي مقالة محل ده اللي ترين أو يري أنا كنت مسلمة مثلا ما ينكرناه أو قالوا إن جيبوا ودنك وحكومتها وحكولة يعني أو جيبوا أي كتالين كران ماركتي حكومة الصومالية مركا واحد وقندراس أو تفرماتشو ركبوا نسيو وقيبيه ولد حالة فولها يا قبل حالة فولها يا مركي لفولنا ولدي لها يا ودوغانيسان ciidan kan ugu leeyahay CID dana Farmaajo ka dambeeyaan ayaga gacanta ku haystaan warre Farmaajo ayaguna gabdhahay kufsan doonaan marno marka hadaadan adinku ka kicin nin inii hadlahaya ma jiro markay waxa la leeyahay nimankan siyaasiyiinta ayaga Soomaalida dabada ka kicin haya madaxweynuhu wuxuu taagan yahay madaxweyne isku sheegan haysta Farmaajo wuxuu taagan yahay maya shacabku waa jecel yihiin oo waa rabaan leeyahay marka wantina ni sheegaya hadda adinku ka dhiidhin weydaan oo mudaharaad aan kala go'in afarta koone ilaa dayniile ilaa lagu yimaado villa Soomaaliya aad soo badnaan bixi weysaan mucaarad inii hadlahaya ma jiro markay mucaaradka dambi ayaad gelinaysaan oo waxay u qaadanayaan internationalku in uu Farmaajo ayagu ay ku kiciyeen shacabka Soomaaliyeed marka intaad aamusantiin nin inii hadlahaya male mucaaradka iyo ragga madaxda raadinaya ma hadlayaan barkay waxay arkaan Xasan Shiiqiyo inaad fiicantiin oo dhibaato aadan qabin marka ayagu doorashadooda iska wataan marka wada reality-ga ka xanaaqinina barkay adinkiya raalli ka ah in ilmihiina la kufsado hooyooyinkiina bakaaro
لحظة سنة عن شورته بحناية أو دولة محمد سياد بركوريسي تي عبد الرشيد علي شرماكي تشوقي أو بكاركو جنحسن هاي أيا حب لوجا قاض هي أو لجا كعين هي رسبت كدتك وايلك أها حشاتك هو يوين كي أباها وايلك على صيلها حشمد يدين مدي يوحي ولنا لقيتك مع دين الإسلام كي كتجن دولة فرماج بركي دين الإسلام وحنا فريسة قفك وايلك إن حق دور جونية أولية أباها دو ياي أوه دو ياي أيها ديتاي ويا ديتاي حق دور جونية إن الليين دولة فرماجو وايل حق دور سماركتين مايا دولة فرماجو سجل جيل حق دور سماركتين ومايا marka waxaan leeyahay ilaa aad ka kartaan oo adinku aad istaagtaan oo aad tirahan NF waa daalnay waa karnay waa bislaanay waa banaan bixinaa aad tirahan oo aad soo banaan baxdaan oo banaan bixin oo kala joogsan waayo todobari bal waxaan ku qaaday maxamed cabdullaahi farmaajo inuu kabiisa ka cararaan intuu saaya iyo nimanka wiilasha kufsanaya ee gabdhaha oo maardoonka biyaha ugu darahayo siinaya caruurta waxa lagu leeyahay indhooda taagan ma hadlaayo ay wada leeyihiin you know why biya la siinaya wax ma maskaxda doorinaya loogu darahaya waana maqana joogay noqonayaan caruurtu waana wax loogu talagalay ee dawladda qadar ay wado waxay tiri mandooriya laga wada dharjiyo ciyaalka wada qabta ay tiri si bir kama leh waaridkood u dilaan ula jeeda kala male waa in maskaxda laga maarido inaad cabsataan uu rabaa farmaajo wuxuu qalqalkaan oo dhan u sameeyay waxa u malaynina gabdhaha in la iska xoogayo oo guriyooda laga soo doonaa iyo wiilasha sagaal jirka ciidanku way fuulahayaan ma aha wuxuu rabaa inuu cabsi in geliyo ina baqdana loo baahan yahay marka waa baqdeen hadda marka nin inii hadli kara ma jiro balkee waxaan aragnaa dad fiican inaad tihiin oo guriyihii joogo oo dadka kale ay waalhayaan saasa loo arkaya marka madaxdu ma hadli karto laakiin madaxdu waxay hadlaysaa markay banaanbaxyadiina arkaan ayay madaxdu hadlaysaa xasan shikoor ma hadli karo laakiin markuu arka xamar inay kacday oo galmudug ay kacday oo hirshabeelle ay kacday isbedel baa imaanaya immediately isbedelaha imaanaya waa la qabanaya farmaajo laakiin waa fadhinaynaa marka saas ay nila wada cabsiinaya xaafad kastoo aad joogtaan is abtiyo waxa la fuulahayo waa hawiye waxa la dilahayo dabaqyada laga tuurahayo waa hawiye waxa beenta laga sheegahayo waa siyaasiyiinta hawiye waxa ma aragtay isdhex farmaajo inuu ka dhaqaaqa ma rabo wuxuu rabaa xoog inuu sanka intuu adoomiyo sida dibiga wabiga ku jiro kale oo saas inii jiido rabaa wayna noqonaysaa haddaad iska gaari weysaa hooyo kasta iyo aabba kasta iyo wiil kastoo dhalinyara oo dhiig leh ha kaco biri walaashaayay kusoo socotaa sheekadan waa qandaraas loogu talagalay gobolka banaadir iyo gobollada ay degaan hawiyuhu in labada keliyood ay gariiraan ay dowladda farmaajo ka cabsadaan ay noqdaan miday dilaan miday fuulaan miday ka nafta ka qaadaan maca 20 jiradiina la fuulahaya wiilashiina 20 jirada marka waxa lagu qaatay inta adiga lagu fuul lahaa adoo 20 jira inaad dhimataan lagu qaatay marka maxaad samaynaysaa waa inaad holombay aad isku ogtihiin oo isgaarsiiseen aad ku soo kacdaan oo muqdisho ay gariirtaan ciidankana adinkaa ka xoog badan farmaajona adinkaa ka xoog badan maalin kasta dhibaatada muqdisho ka socota waa dadka gobolka banaadir degan oo ciidan saa'ida loo keenayo oo qoryo saa'ida maanta ugu maqan yahay Faad Yaasin oo eletreeye keenayo ood aragteen dadka la keenay ya inay hooyooyinka baabi'iyaan iyo dhalinyarada iyo waxaa la rabaa hawiyaha qadar waxay tiri hala kala reebo magaalada muqdisho hala baabi'iyaan la jiri magaalada muqdisho hala baabi'iyo marka haddii adinku aad rabtaan inaad saas ku jirtaan walaalayaal dad ha eedinina farmaajo qandaraas ayuu ku qaatay qadaraana keentay fikradan in ilmihiina iyo gabdhihiina la fuulo habrihiina madaxa laga garaaco qoryaha madaxooda lagu dilo alla keenay mid laxaana waa arkaynaa marka maanta waad arkaysaa waxa ka dhacay wadanka galmudug waxa ka dhacay gabar yar oo 5 jir ayaa lagu fuulay baadiya gurceel marka adinku waxaad ka hadlaysaa waxyaalo kale gabdho yar yar oo 3 jir iyo 4 jir waxa lagu fuulay afgooye farmaajo qandaraas oo baxsaday rag buu la heshiiyey waana lagu raacay labada nin oo baarlamaanka waxay yiraahdeen saas aan sameeyno nimanka dadka afduubahayo baabuurta wata waxay ka socdaan farmaajo hadhowna dadka la ku wareejinaya laakiin koow waa in mandooriya lagu siiyaa wax maskaxdaada qalqaliyo ila gabadha xamraa laga waday gurceela lagu qabtay hooyada waxaa la yiri ula jeedadu maxay tahay gabadhan kaliya ay baarka in lagala soo baxaa la rabay dhinaca caabud waaqaa loo waday halkaas Itoobiya laga gelin lahaa ila dhakhaatiirtu Itoobiya qaarkood dhooban yihiin qaarna xalan ku jiraan marka Soomaali waa karteen dhimashada iyo nolosha kala doorta inaad xorowdaan oo xor noqotaan oo farmaajo wax la mid oo dambe wadankan uu xukumin inaad raalli ahaataan oo cabsidaan aad ku jirtaan oo cabsidaan ay inii fiicanto ku jirtaan altargay dawlad cusub soo ma socoto
dagaalka ugu xun ayaa ka dhacay waxa la yiri biyo intaynu ku soo gaarin ayaa la iska moosa marka aniga sababtaan u soo galay taas weeyaan hadda YouTube-ka caawina waxa soo galayaa 2 saac Facebook waa loojigo waa wax loogu talagalay in lagu sameeyo gobolka Banaadir iyo gobolada hawiyuhu degaan haddaad sugaysaan inay Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ka hadlaan kama hadlayaan ayaka ma ahan wixii abaabulaha oo dadka kicin lahaa dadku markay xanuunka dareemaan ay gubataan oo dhibaatooyinka xunxun in ku dhacaan markaas aad kacaysaan anaguna markaas aan sugaynaa ayakuna markaas ay ku sugayaan laakiin hadda ayaku waxay sugayaan adinka marka dambeynaysti wili xanuunkii si fiican uma dareensanidin waxa soo socdana ma ogidin waa dhaqantihiin farmaajo wuxuu yiri anigu aan garaaco fuulo oo wiilashaydu ha fuulaan iyo ciidamada aan diraayo beerka iyo kaliyahan laga gurto laakiin aqwadanka farmaajo haysanaya ama ku farax ama ka xumo farmaajo hawiye waa in tirtirahaya habriina hawiyo caada qaatooyinka birina gabdhihiina ku soo socotaa marka xanuunka marka adinku dareentaan adinka banaanbax sameynaya banaanbax aad uga soo horjeedaan farmaajo ayadoona baryo ahayn adinka sameynaya wada riyaaltiga marka inii sheego nin inii hadlahaya ma jiro nin inii hadlahaya ma jiro waxa lagu leeyahay Xasan Al-Khayr maanta wuxuu yiri shacabka la badbaadi yaa badbaadin kara shacabka shacab asagiba aan kacaynin oo futada dhulka ay ku hayaan marka waxa waa baqdeen alloora silensi ahaada ilma la xaday iyo gabar baa la xoogay iyo gabar baa la diliyaan in ka maqlin ceebtiina qarsada cunug hadaa weysan shibta dhaha afkiina qabsada ma diidino ina hadashaan oo banaan baxdaan oo farmaajo aad tustaan dhibaatada in haysata farmaajo dhibaatadan asaa ka dambeeya in adinka in la cabsi geliyo ayaa loogu talagalay marka hadaa fahmi weyseen nin inii fahmaaya male marka madaxdu shaqo ku male madaxdu waa rag doorasho iska soo galaya nasiibkooda qabaan doorashadaas ay ka qayb galayaan markaas haddii ayagu la doorto ay wax ka bedeli doonaan wadanka laakiin inta ka horeysa dil iyo qarjajac iyo dhicitaan iyo isxoogitaan iyo gabar la waayo wiil la waayo waxay soconaysaa inta adinku aan raalli ka tihiin oo dul qaadan kartaan ayay soconaysaa maalintii ma aragtay dulqaadkii aad ku karteen oo jirku inuu wada damqaday oo xanuunka aad dareenteen adinka banaanbax sameynay waxa in ka baryayo Soomaan soo banaanbaxa oo dhibka in haysta banaanka keena afarta koono Banaadir ka soo banaanbaxa Soomaan markii si fiican aad u kartaan ayaa adinka dal u soo banaanbaxaya ayadoo qofna in dhihi soo banaanbax marka annaguna markaas aan sugaynaa waana in salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh yaan been laga sheegin Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur adinka raalli ka oo raba farmaajo inuu ilmihiina saan u dilo ogow hooyadii maanta gabadheeda la keenay biri hooyo kala saas la yeelayaa gabadheeda hooyo kale wiilkeedana la fuuli doona oo la xoogi doona saasa wada ahaanaysan marka dadka kale been ha u sheeginina adinka raalli ka ah shacabka Soomaaliyeed oo Banaadir degan ayaa ka raba farmaajo wuxuu ku sameynayo iyo dadku u soo diraayo waa dad qandaraas la soo siiyay oo farmaajo u soo siiyay waxba lama qarinayo banaanka taala maalinta adinku garataan ina banaanbax sameysaan aad farmaajo uga soo horjeedaan maalintaas ayay in soo garab istaagi doonaan madaxdii hore ka hor Soomaan nin noo soo baxaya male barkay waxa la leeyahay madaxdaana dadka dabada ka wada marka saasaan ku salaamaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh